أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أمام مليون من سلام يا ناس أدوك تعالي سكتوكتا سلامك بعدي waxaan ka sheekeynayaa maanta dadku waxay ku faanayaan ama ka sheekeynayaan ama ka hadlayaan. horta siyaasadda waa la wareerisay fiyuuga yarkaan heli jirnay oo dadku nafeesan jireen kullu siyaasadda wada fiirsanayaan. annaga xaggeena na soo fiiriyo annaga war sheegaynaa na soo fiiriyo. dadku siyaasad jecela dalka inay dumiyaan jecela balaayo inay walaaqaan jecela. annaga wax positive sheegaynay annaga na dhageysta. annaga waa u baahnay nafley baan nahay oo na fiirsada koow. waxaan ka faalloonayaa anigu always waxaan ka faalloodaa wax runta oo jira. dadka guryahooda ay ka shidan tahay guryahoodana ma taabtaan guryo kale qashacsiiyaan. annaga tanaan ka shidannaha gurigaa yarkaa oo aan dhisayo geedahaas waxaan usoo la iiga soo diray beledweyne wiilal soomaaliyeed baa ii soo diray. magaaladan aan joogo dhibaato waxaa nagu haysa shaqaale waxaa ka ah oo guryaha dhisa reeraha dalka degan. reeraha dalka degan hunguri jecela lacag jecela shaqana niciba ya nin qayilaya ee sooman ee aan dhihi karin waxaas ma qaban karo. wixii qabyo farba mar buu qaadaya. wixii loo diray buu ka dhuumanaya. midkii uga tagaa ka dhuumanaya. kii kalena waa ka dhuumanaya. maalin walba muddaa ka laalaada. marka waxaaban waxba loogaba dhisan karinin oo aan guriga looga dhisan karinin dambe oo aan loo rabinba shaqaale baaban jirinba kaad meel kale ka keensatidna sida loo qandhufta yaqaanaa sida loo qajirufta yaqaanaa sida lagugu diray yaqaanaa. dumarkuna annaga dadka iyagaan runta haddaa idin sheego puntland iyo intaan goboladan wardheer iyo eeriyadayadan reeraha yadan dee majarteenka u badan iyo dadka la dega dumarka aad bay neceb yihiin. gabar dhaqdhaqaaqaysa iyo gabar wax ah midna ma jecla. anigu geed adayg baan ku soconaynaa mooyaane ragna jecel ma haysano. adduunka waxay arkaan anaga inoogu neceb yihiin. magaaladan waxaa joogta gabar magaaladan ma deganay magaalo waxay degan tahay la yiraahdo bari sacade. ina waxaa la dhahaa ina caliwaan maxaa magaceeda. gabadhaas waa gabar fariida gaari bay wadataa. nin soonahan degan oo aan necbayn ma jiro. gabadhaas waa gabar yar oo gaari waxay wadataa bas yar bay wadataa. way ku ganacsataa way ku shaqaysataa business bay leedahay. waa gabar fariida meeshii encourage la siin lahaa oo thank you la oran lahaa. gabadhaas fiiro gaara loo yeesho. dadka diyaas baraha la hadlaya gabadhaas ina cali waal baa la dhahaa. waa gabar reer bicdiyaana reer maxamed gaari eri ah reer cali sugla ah weeyaan. waa dulman tahay. waxay ku dulman tahay gabadhaas qofka bini aadanka marka la xagxagto oo la cayriyo oo la caayo oo la isugu tago aggressive buu noqonaya. rag dhan baa waxay u xiran yihiin ina cali waal ma ka haraysaa. ya aniga waagii lay cuni jiray markaan waddanka cabaar joogay oo ina cali waal arkay baan waxaan arkay gabadhaas dulmiga dhibaatada lagu hayo. mid arki kara magaaladan xataa waxa jooga xataa kuwa dowladaha ku jira ma arki karaan. maxaa lagu nacayaa? waa qof karti leh. waa gabar taalanti leh. waa gabar dalkan joogto aduu gaari wadata kasoo shaqay. baabuur basay wadataa. waxay doontay ku gadaa. alaabti bay ku wadaa. way ku ganacsanaysaa. xoolihii bay ku wadaa. way la ciloobeen. raggu naa ka karti badan ma jeclaa. aniga horaa la ii cuna oo soomaali weyn isugu kay tagta. halkaana waxaa ka shidan ina caliwaal. ina caliwaal waa in loo istaago oo fiiro gaara loo yeesho. madaxweynaha DDS waxaan kuu sheegayaa gabadha yarta ah waa gabar hooyo ah oo shaqaysanaysa oo weliba tuumar dhuunta kaga taalo dhuunta buraan kaga taala. strayska iyo rafaadka ay ku hayaanna you cannot imagine. samaada garanin wasiirka iyaga waa u sheegayaa fiiro gaaraha loo yeesho. magaalada bari sacad ay degan tahay. dad dhan oo bari sacadda laga soo xiray kulligood waxaa loo haystaa ina caliwaal ka hara. xaqna ma ahan. aniga meesha rabtaan geeyay meesha rabtaan waxaan ku argalaadi waa sheega no wanaan ka baqayo ma lahan. no wana aan been ka sheegayana ma lahan. waxa factiga baan sheegaya. wax dheer baa hadda loo dhaadhiciyaa iyadii ragii kalaba. samaada garan nimanka dhan waxaa lagu haystaa ina caliwaal ka hara. ina caliwaal waa qof nool. waa gabar dadaalaysa. reeraha iyagana gabadha ka soo baxda oo dhiig gale way ka qiimo badan tahay gabdhaha. way ka qaalisan tahay. sacdiyo baa waxay tiri sacdiyo gabadhaan ah baarlamaanka gudoomiyaha labaad ee baarlamaanka ah baa waxay tiri gobolka puntland aan kasoo jeednay tiri ya gobol dumarka laga jecel yahay ma aha.
beenteed maaha waa run waa fact weliba afkaan ku dhufanaynaay ma jeerteenka ya ma jecla gabdhaha ma jecla gabdhaha ka soo baxaana waa gabdho fariid ah oo gabdhaha ka qaalisan because carabta reer maxamuud saalax ya meherigu ma jeerteenku la degan yahay waa isku dhaqan waa wiil iyo abtigiis iyo seedigiis iyo walaalkiis iyo abtigiis iyo hooyadiis weeyaan waa isku dhaqan weeye soo runtaa idin sheegaynaa dalkaasi waana dhaama marixaanku waana dhaama kuwa yaga kuwa ma jeerteen ka liita ma jeerteen ay kala saar aniga kulligiin awrka dabar looda arigood baati warya kulligiin isku wada mid baatihiin yaa gabdhaha nicib anagana waxaan lagu jira xabada naga soo baxda ama labada naga soo baxda ama 20ka nagu jira ama 100ka nagu jira way ka dhiig badan yihiin ragga marka waxaa la rabaa xiniyaha in lagu dhago labadii naas kow oo taarjabadayda banaanka igu taala labadii naas kow diracay koobka why because gabadhii dhiig leh rag baa cunaya guriga xanka wahara la idamayn lahaa bisha ramadaan waa igu bilaabato igu dhamaato deedka yarka inta la dhisaayo iyo meesha yarta inta la waxaynayo calaashaan naagnimo ay waxa tasiyahaya biyaha ka baqaynaya galaan si calaashaan naagnimo baa gurigayga xiniyaha loogu haya mid allaala midka ii dhisa bus ku ridaya xanuun buu ku ridayaa hal meel haday dhahaan waa dhisaynaa ya 12 maalintaas haas isoo rida wareegaya labada xiniyood ka wal idinka sii Soomaalida gaar xaasnimada naga daayay oo ina cali waal iska daayay oo jeel ka soo saara dulmi baa ku xiraysan cali waal ragga hal xirana kulligood waxa ku wada haysataan ya wax kala ma ahan naag walbana TV-gaygaanay ka baqaysaa wallaahi billahi oo tallaahi hada YouTube-kaygaan warkiina ku guri lahaydeen ya Ethiopia ay ogaan lahayd kililka iska daayay Ethiopia rasmiga ah ay ogaan lahayd federaalka leedinka ogaan lahaa oo adduunweynaha leedinka ogaan lahaa dad wada liita oo kaamirada ka cararaatiina wada calala ah anjeela yahay wada anjeelada haday naag walba in walba halkaas soo fariisto problemkiisa ka sheekeeyay ya warkiina waa la ogaan lahaa adduunyada waxa la isku dhaafay media baad ka cararaysaa markaas waxay ducay ana soo taaganay media faraha gashada aku dubaysa aku faraysa ma aku faraynaya dubi maayo aku faraynaya tiistii faraha soo gashada Soomaali garanin hadda ka hor ma hadba ay lugooyay oo guriga wada busbuska u yeelay oo meel jeexan iyo meel jaban iyo meel buusan iyo meel cudur qabta ka dhigay cudur Allah ku riday haddana ina geed gooya igu saladan taas inta umar mariyo oo laba aan waxba aqoon keensado qofka hadduu xataa shaqaale keento la soo galo hal mar buf laga siiyo hayo bal wuxuu oraya soo qaad cunaya idii taqaan inta aan ka booranaya mana shaqaysan yaqaanaan lacag sida loo cuno yaqaanaan kansar alla idin koodridi maanta mid xunu soo dirayo barki daqiiqadu ku dhameyn karaan oo kuwa geedahayga banaanka yaala shalay la xabaalay ahay shalay jimcay baa ahaydba maanta in loo dhameeyay ahay lugooyo farxad qaadan waxay rabaan shaqo aan dhamaanin maaragta futada laga farfaraya marka dhiigar laga keenaa laga tagaya markaas faadmo loo tagaya futada laga farfaraya markaas faarax loo tagaya futada laga farfaraya markaas faanta loo tagaya futada laga farfaraya markaas anaga wada fariisan kan meesha wada taagan qof hadii la keeno waa dhawayta niman jareera la keeno oo masaajid halkaan iyo guriyaha kala dhisayay budad bay intay qaateen shaqaani la dhicay maxay leeyihiin iyo wada kayba anaga shaqaynayna mana shaqaysan yaqaanaan dad wada reeneefooda wada tibeen wada qabanad mid tuugiyay soo waxay idin sheegayaan waa ku dulmanahay guriyo dhul baan rabay inaan ka gato gabadhi dhulka aan ka gadan lahaayay kaamil fara dheer dhulkaaga waa ka noqday dhulkaaga gado anu kuwaan dhul u gadan maayo dambe dhulkaaga kaamil fara dheeray ee raalli ahaw dhulkaaga gado kuwaan wacda laan wax dambe ugu ilaahay oo kan maanta inta ku dhex jiro ya oo hagaajintiisa yarta intaas ii harta ilaahay rabbiyo iga dhamee wax dambe inaan ka waxeeyo mageedahaas yarka hadaan godka geliyo wax dambe kama waxeeyeen ee dhulkaaga waa ku fasaxay gado dadku kale waa wada dhageystaan kaamirada qofkii arko kaamil fara dheer oo sheegay dhulkaaga halkaan ku yaalay waa ku fasaxay gado anu wax dhisayana ma arag wax bini aadanana ma arag eelay baa jooga mid ah oo oday oo dhamaaday baa jooga oo hadda ka hor mar video soo gali jiray oo intiis jiray baa jooga waa dhaqaaleeya waa saaneeya dadkiisa laba joogo halkaan uu jooga masaamiir baa meelaha kaana u taala markaas laba masbar loo soo dhiibaya labada kabood intuu kala baxo masaamiirta ku dhigaya dhulka markaas maanta na ku haynaysa shaqaalihii kale xataa kama ku wargalayaan markaas waxa la oranayaa lacag badan ka qaad keen markaasuu keen subax damaadee damiir baad leedahay xanaaqaysa anigu ma ugaaskaan sameeya anigu ma dollarka American sameeya mise habar maskiinaho dalkeeda u soo caana doontaan ah waxay idin sheegayaan meeshaan waa lagu dulman yahay
horumar gaari mayso. wiilka geedahan iisoo diraa wuxuu yidhi galaadi geeda badan baan usoo diraya dhulka naaru jahanaba weeyaan baan ku yidhi kuwaan geed ha usoo dirin ya naaru jahanaba weeyaan kuwan geed ha usoo dirin kuwan walaala geedo kuwaas gurigayga aada usoo dirtay ilaahay ajar iyo xasanaada kaa siiyo kuwaan haddaad usoo dirtidna yow yahay bay ku leeyihiin aniguna caawa cidaad tahay soomaali cidaad ka tahay ma aqaano ayaguna waxay ku oranayaan yow yahay marka waxaan kuu sheegayaa walaala kuwaan ha usoo dirin geedo naartaan ay ku jiraano bilaa geedka ah bilaa bahalkaana damiir la-aantaa ku kaliftay dadka ilaahay dhir bay beertaan oo geeday beertaan oo dadka waddanka imaanaya soo dhaweeyaan oo waddankay biyo gashadaan ku dhacdo hawar waa dhex fadhiya baaley ma dhex fadhido baaley xaaraan ba wallahi baaley utaas ma ardaa baaley waa xaaraan ma so waxaan idiin sheegayaa meeshaan dadka jooga dad horumar rabana ma ahan waa dad meeshooda ha ku dhinteen anigu waa uga tegayaa kulley gurigaygaan baa ku saaray ilaahay inaan degayn oo gelayn oo inta adduunka saarantiin maxaa ku dhex jiraad oranaysiin intaan qufusho baa North America ku noqonaya I go back home I miss my country America waa maskareeyay dad cadow ah dad doqomo ah waligiin ba haddaad artaan xaasid doqon haddaad artaan waa xaasid waa doqomo markaasay xaasidin yihiin barno ama kororto barna ma ahan inay jigjiga u ordaan iyo inay gaalkacyo tagaan mooyaane adigaa degmaa maba aaminsana gaalkacyo waa gobol wardheer waa gobol booq waa gobol waa degmo wallaahi oo bilaahi oo tallaahi qaloocan baa galaadi dhaanta waa meel gurigeed ba-ay dhagaxii aniga layga daayay hadday soo celinayaan hadday rabaan soo celiyaad sheegaysaan aabihiin iyo hooyadiina soo kaxaysta horta ayagaa is dhagax tuura kuwa waaweynkaabaa is dhagax tuura magaaladan ku jiraa warkoodaan raadiya waxaa la ii sheegay intay musqulaha galaan oo dhagax musqulaha dhigtaan inay daraska shiidaan ciyaaladoodana ayagaa soo dira habeen walba habeen dhaweeta xuseen foor waxaa la yidhi isagoo meel ku qayilaya baa dhagax lagala daalay ninkaasoo qalqalano ayaa dhaweeta lasoo qalqalay dhagax baa lagala daalaaliyo basta laga saaray waa sida warka laygu yidhi habeen dhaweetana magaalada tegay anaa soo baqay dhagaxa dhacaya waad yaabaysaa ma reerkaan carruurtooda laaqon waa kuwe yuug iyo yimaayuug bay u joogaan carruuraa u joogta xabad alla idinkama reebo hal xabo edablona kuma jiro habar shaha karinaysaa cunug edadul dhalaysa mise nin qayilayaa cunug edadul dhalaya habartiina shaha bay karinaysaa iyo canjeero iyo baastay meel ku walaaqaysaa 3 carruurna waa haysataa 8 bay haysaa 9 bay haysaa 10 bay haysaa 12 bay haysaa ninkiina dawdarkiina meelahaas isaguna taagan yahay qaad buu cunaya carruurtoodana yaa dhalay dariiqaa dhalay dhagaxay wataa shaqo kale lama haystaan carruurta markay xoogaa wareegaanba ayay dhagax bay qaadanayaan qalala weligeed galgala hasaa loo dhagax tuuraaba sow meeshaan dadna kaama joogo dalna kaama jiro dalna waa u cadaab dadna waa u xayawaan ya dameerka naahameen baa waxaan arkay waxaan ka yaabay nin baa wuxuu iska dhigahayaa badeel soo qaatay wuxuu ka dhigahayaa inuu dameerka wax siinahayo hoo buu yidhi hoo marka usoo dhawaaday dhagax baa ilaa kaa ugu jira uu karsanayaa buu gafuurka uga dhufta naxdinta aan naxay wallaahi oo bilaahi weli markaan joogo shoog baan qaadaa dameer markaan arkay ninkaan soo xasuustaa magaaladana degan waa nin weyn magaalada degano business ku haysta maa cunuga xaasidnimada dameeraha magaalada jooga wax ka xaasidsan maasay u dilayeen bu markuu agtaada marahayood kirkir tiraada bu xaar batatata kugu siinaya xay dameerku waxa ehlu naare xagee ku arkaan dameer ehlu naare hadduuse ehlu naar yahay ilaahay baa naaranaya maadaa naaraya waa raranayaan waa dilayaan waa rafaadayaan waa bahalkeenayaan subxaan allah xayawaankaa loo rogay wallaahi oo bilaahi oo tallahi galaadi waxa loo rogayaa waa xayawaanka masaakiinta ah eydu arigooda markuu banaanka u baxo weecday ka dhigayaan markaas ay ma arki karaan ayagaa cayrsada eyguna ayagii arigooda waa ilya dheg arigooda mar allaale markuu meel ka arko bay 500 ayagoo intay ku tagaan bay koox ka cunayaan waxa dhaawac iyo orgi dhaawac magaaladaas jooga waa yaabaysan oo eydu cuntay Soomaalida garan meeshan bahal ba iska buuxiyay soo waxa idin sheegaya galaadi waa guri xaasid anigu sa YouTube baan ku qoraya galaadi iyo cilmigeeda anigu meel kale daniga ma hayso meeshaan xunta ayaan ku dhashay oo guriga xaasid aan ku soo khaldamay horta waa ku biskoodi waxyaalo badan waan ku bartay raalli ah waan ku bartay waxaa jira nin Cumar la yiraahdo waxa la Cumar astaghfirullah lama dhahay waxa maanta Cumar baan ku ayaa Muuse qala dhaha nin Muuse la yiraahdo jiro magaaladan joogo oo dadka xanuunsanaa jooga oo aan dhaqdhaqaaleey ayaan baa waxaan ku yiri Muuse inta ma xirtay Muuse day baan ku yiri waa xirnay markaasi maxaa ku raxay markaasi waxaan ku yiri dhaxalkii baa Muuse la ii diiday kooda waranay kooda miirka oo isku damiir markaasi yiri oo maxaa ka maqan saan maxaa ka wada Muuse dhaxalkii baa la ii diidan ku yiri markaasi ciil la xirta markaasi yiri oo waxaad haystay ma aragtay miya
waxaa haysatid ma aragti miya waxaad haysatid ma aragti miya wakaasa waa isku mid kallaahi oo billaahi oo tallaahi kooda waalan iyo kooda doqonka ah iyo kooda caqliga leh iyo kooda cilmiga leh iyo kooda shiikha ah iyo kooda ismka ah waa isku waa dameer labada dhagood kulligood kuwaasa samaada garanay wakaasa maxaa kaa maqan maxaa kaa maqan biir xaqayga waa iga maqan markaas wuxuu leeyahay waxaa haysti ma aragti miya waxaan na iska leh marka wax badan oo lagu qoslaad ku arkaa wadankan ku arkaa salaamaya waana maamuliyeen ah waalin walba waxaad dhahaysaa wadnaha barku ku ayeer kaad aragtid kii kale markaad marada ka soo rogtid waa isla kii kale waa isku dameero labada dhagood I don't know meel ay tahay waa isku dhis waa isku ehel gabdhuhuna qiimaba kama laha ma jeerteen gabdhahoodo waxaan idin sheegayaa rag ma lihidin roobaqda ragga iska daayay raggaad u roobaq tirahdaan rag ma lihidin idinku isku duubnaada gabdhaha ma jeerteenku anigu gabdhaha leelka salaali maayo gabdhaha daaroodka kale la hadli maayo gabdhaha Soomaalida kale la hadli maayo gabdhaha ma jeerteen baan la hadlayaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi gabdha inaga fiicanaysa adduunka jira gabdhaha adduunka ugu qaalisan baan nahay laakiin rag cadow ah baan ka dhalana waxaan idin oran lahaa in beesh inagu aan isku tiirsanaano annagu aynu isku tiirsanaano alxaq inagu aanu isku tiirsanaano aynu ogaano in aan raggeenu cadow yahay inta la degtaana waa la mid majority-gooda soo waa idin salaamaya macna ma leh waxbaa lagu bartaa dhibaatada faraha badan baa fiican wax badan baa ku baranaysaa anay go back America I want to go back USA insha Allah soon waan noqon doonaa wadanka waa nacay waa tufay wadanku wadan ma ahan wadanku wadan waa yahay wadanku horta wadan ma aha waa wadan naar ah waa wadan kulul waa wadan ab intaqaanaayo to desert ah waa wadan ab intaqaanaayo no quality dadna ma leh anigu waa Arizona deganahay waa magaalo kulul laakiin oo desert laakiin dad bay leedahay waa xayawaan waa dal kulul oo xayawaan wata joogan waa xaasid kuwa dadku ugu xiga waa kullu goynayaan kii dadku ugu xiga waa ku propagandaynayaan kii dadku ugu xiga kan kaloo nicib yahay qof baahan oo xataa tuugsada ma dhaqaaleynayaan miskiintaas guriga aanu dhisay kama amaan helo kabsaarta fakan wada dhansa iyadoo kale ii keen goormay haysan jirtay ayaga ku soo oranaya marka miskiinkeeda xataa caawi ku soo dhicmayso iska daa qof caadi ah miskiinka galaadiyeed caawi ku soo dhicmayso no thanks we in salaamaya adban maanta u kaxsanay reer galaadi baan ku kaxsanay laakiin kaxsanaan oo xanaaqa ma ahan waa kaxsanaan aan ka sheekaynayo wax jira ina caliwaal inda gaar ah loo yeesho ina caliwaal wasiirka iyagu madaxweynaha dalkoow mas'uuliyiinta wadankay gabadhaasi waa gabar fiican waa gabar geesiyada xukun baa la dhahaa I think xukun caliwaal baa la dhahaa I think in xukun la dhaho waa gabar fiican waa gabar dadaasha waa gabadha kaliya aan ku arkay wadankan intaan marayay ya magaalooyinka waaweynka ma ahana gabar safe area joogta oo gaari wadata ya bas bay wadataa caruur bay korsataa way ku shaqaysataa waa single mother baan jeclahay waa gabar ordaysa raganimada loo diiday dhaqanka loo diiday waa in laga qabtaa mas'uulka haysta waa in laga qabtaa waa in fiiro gaar loo yeeshaa waa in womanka right la siiyaa we need woman right baan u baahanahay gabadhaas fiiro gaar ah loo yeesho gabar hooyo ah baa raggii waxa la leeyahay ina caliwaal ka haraysa that's not right ina caliwaal gaariga galaadiga ku dhex baarkin gareysay ayadana gordheer baa loo qaaday waa ii hadhana galaadiga ku xirnay dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa ee DDS haween maadaama aanu nahay dalalkan dulmi badan baa meel walba ka jira gabadhaas si gaar ah loo fiiriyo hadday xaq leedahayna xaqeeda la siiyo haddii laga gardaran yahayna xukun ha hesho meesha anigu been ma sheegay wax badan oo mugdiya la qaana bahal baa iga buuxsamay waan salaamaya walaayaasa u yaacaysa meesha ma aragta waxaana yaacay Soomaalidan dhirta waxa saarnal waa kana nimanka dhan oo maanta guriga dhisa aan iriday inta yarta markuu dhisay ninkii dhamaayo wax dhisayay waa meesha ayaro jardiinka shisha ah wuxuu mariyay bahasha yarta inta aan midaan waxba aqoon buu uga tagay intaasoo ninkaas dhan saaka soo shaqada u soo galay uu qabta waxa shaqada dhaha marka nin oo saaka shaqada soo galay shaqa inta ka dhigtay labada gacmood ba ka wala kaasi adaan ku sheegaya wariya adigaan ku sheegaya ina geed gooyo waxba ay waxayni cadowyo mijaha dhuudhuuban lo afka cad tuuga kulligood wada mid maalin baa isku raraysaa subxaanallah war sida isu dhaamo xishooda naga xishooda oo hadaa shaqada noo qabanaysaana noo qabta hadayna wax noo qabanayna waxba idin qaban mayna dhahan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.